kaashiga dhinaca ammaanka sirdoonka Israa'iil ay sida rasmiga ah Soomaaliland ugu aqoonsatay dal dhamaadkii gugi galbaday ee 2025 waxa qalinka ku duugaya heshiis ay kamid yihiin kuwa taabanaya amniga gobolka aan deganin ee Geeska Afrika saameyn culusna ku sii reebaya dhacdooyinka isbedelaya ee xere adag oo dhanka taagan maalmo ka hor heshiisyadan waxa ay soo taraya xogaan la xiriira iskaashiga dhinaca ammaanka sirdoonka iyo diblomaasiyadda ee u dhaxeeya Tel Aviv iyo Hargeysa waxaan hadda banaanka u soo baxay xogo waaweyn oo tilmaamaya sida Soomaaliland ay u dhex gashay loolanada caalamiga ee ka taagan gobolka bariga dhexe tabintan aynu ku eegaynaa Soomaaliland sidee ay uga dabaalan kartaa maxayse ka faa'iideysaa ku milanka dhacdooyin waaweyn oo ah kuwa ka socda mandaqada bariga dhexe iyo Israa'iil ay si toos ah uga gudbeen xiriirkii diblomaasiyadda ku dhisnaa una hayaabeen dhinaca difaaca iyo galalka xasaasiga ee sida tooska u taabanaya badda cas gacanka cadmeed iyo gobolka aan deganaanshaha siyaasadeed iyo kan amni midna haysan ee Geeska Afrika oo si fudud ugu xadfan dhacdooyinka ka dhacaya mandaqada bariga dhexe maxay faa'iideysaa Soomaaliland maxaa ka dhalanaya heshiisyada cusub Israa'iil kaalmada military iyo tababarka ay siinayso ciidanka Soomaaliland booqashadani toddobaadyo ka hor wargeyska dalka Ingiriiska ka soo baxay ee Telegraph waxa uu daabacay Soomaaliland ay gashay heshiis dhinaca difaaca oo ay la wadaagayso dhinaca Israa'iil kaasoo bilowgiiba lagu furay in konton in ka badan oo saraakiisha ciidanka Soomaaliland la qaaday oo lagu tababaray gudaha Israa'iil iyadoo oo la baray adeegsiga diyaaradaha drone-ta istaraatiijiyadaha dagaalka iyo ka hortagida khataraha amni tan waxaa lagu fasiray bilowga geedi socod ay Soomaaliland doonayso inay ku dhisto awoodeeda ciidan iyadoo oo quldareynaysa inay gaarto hadafka madambayso ah isku filaansho dhinaca ammaanka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan gacmaha ka laaban doonin waxa uu ku tilmaamay duulaanka Israa'iil ay ku soo qaaday Soomaaliland oo sheegay inay qayb ka mid ah Soomaaliya ilowradii dhinaca ammaanka ee gobolka ayaa u sheegay in Soomaaliland ay baadi goobayso haatan helitaanka raxan diyaarado drone oo isugu jira hub sahana weerar fulin kara taasoo haddii ay hesho ka dhignaanayso bedel weyn oo ku imaanaya loolanka awoodda ee Soomaalida ilaa Geeska Afrika iyadoo Hargeysa ka mid noqon karta dhinacyada ku hubaysan diyaaradaha bilaaduuliyaha in diyaaradaha iswada ee Israa'iil sanacada ay soo saarto ay siinayso Soomaaliland iyo in kale wali dood ayaa ka jirta iyo hubanti la'aan balse dadka ammaanka ka shaqeeya ayaa isku raacsan in helitaanka diyaaradahan ee Soomaaliland ay noqonayso dhacdo weyn oo ku cusub amniga Soomaaliya qaabaysanka wax badan ka bedelaya isla markaana toos u taabanaya loolanada gudaha ka furan tan oo xiiso gooni u leh darafyada loolamaya sida ay warbaahinta UK sheegtay tababarada labada dhinac dhex maray waxa uu ahaa mid qarsoodi oo aan faahfaahin laga bixin waxaase la isku raacsan yahay in tababarku uusan ka dhicin gudaha Soomaaliya ee dufcooyinka dhinaca Soomaaliland la geeyay gudaha Israa'iil iyo aaga kale oo ka baxsan labada dhinacba waxa sidoo kale la ogaaday in khubaro dhinaca ammaanka oo ka socotay Israa'iil ay booqdeen